أولاً وحان سلام يا قدون كبرلمانكا وحان كلو سلام يا حلبان هذا فدرالكي هالكان كجيدي سيمناركا برلمانك لبادي قلمدو وأنا قام هاد علنينا وحان هاد علنينا يا حلبان هذا قلمدو صاحة هذه الشركة وحان كلو قام هاد علنينا وزارة أرمها قدها ونقاس عيدة يسيب حق فرسمة انت كدب وحان رواينا أخريو أفراع الدورشدة ما دام دمية قدق الدورشدة ويوكي شيئا أخريو وحان كبلا بيننا مركبو رئيسا وردع كدب مركح الدمانة كلها شرعي دجينتا قلمدوك أي اسكا دح دورتين قدونك رسميك أي كلها الدمانة وحي اسكا دح دورتين قدق الدورشدة وهو قامين الدورشدة مدحوينها هي مدحوينة كحقين كدولة قبليتك قلمدوك حلك قدق وحو نقونيا fududaynta qabashada doorashooyinka daahfuran oo xor iyo xalaal ah sida uu qabo qodobka 47 ee dastuurka dawlad goboleedka Galmudug doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Galmudug farqadiisa koowaad madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug waa in ay doortaan golaha sharci dejinta dawlad goboleedka Galmudug farqada labaad ugu yaraan 3 meelood laba tirada guud ee golaha sharci dejinta dawlad goboleedka Galmudug waa inay joogaan u codeynta doorashada madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug farqada saddexaad waa inay musharaxiintu u soo jeediyaan fadhiga golaha sharci dejinta ugu yaraan 10 xildhibaan golaha sharci dejinta dawlad goboleedka Galmudug qodobka farqada afraad musharaxa madaxweyne kasta waa in uu musharaxnimadiisa gaarsiiya golaha sharci dejinta dawlad goboleedka Galmudug waa in uu barnaamijka doorashada u soo bandhigaa golaha sharci dejinta dawlad goboleedka Galmudug markaa kadib dooranaya iyadoo la raacayo geedi socodkan xarafka E codeynta doorashada madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug waa qarsoodi golaha sharci dejinta dawlad goboleedka Galmudug waxay madaxweynaha u dooranayaan murashaxa ku guuleysta aqlabiyada 3 meelood 2 meelood tirada guud ee xildhibaanada golaha sharci dejinta dawlad goboleedka Galmudug haddii murashaxu ku guuleysan waayo waxaa codeyn labaad loo qaadayaa 4 musharax ee ugu codka badan waxaana ku guuleysanaya madaxweynenimada dawlad goboleedka Galmudug murashaxii hela aqlabiyada 3 meelood 2 meelood codadka tirada guud ee xubnaha baarlamaanka golaha sharci dejinta dawlad goboleedka Galmudug xarafka D murashaxii ku guuleysan waayo codbixinta wareegga labaad waxaa codbixinta wareegga saddexaad loo qaadayaa labada murashax ee ugu codka badan waxaana madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug ku guuleysanaya murashaxii hela cod hal dheer ah 50+1 ee tirada guud ee xubnaha golaha sharci dejinta dawlad goboleedka Galmudug shan doorashada madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Galmudug waxaa loo marayaa afraaca doorashada madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug qaybta labaad waajibaadka shaqo ee guddiga doorashooyinka diyaarinta jadwalka doorashooyinka labo xaqiijinta agabka looga baahan yahay howlaha doorashooyinka ee diyaar u yahay saddex furitaanka akoonka bangiga oo ay murashaxiintu ku bixinayaan lacagta guddiga u go'aamiyeen in laga qaado musharax kasta qabashada araajida musharaxiinta xaqiijinta musharax walba uu soo buuxiyay shuruudihii u yaalay musharaxiinta jagada u tartamaya 6 wacyigelinta ku saabsan hanaanka codbixinta oo ka horeysa doorashada 7 xaadirinta xubnaha golaha wakiilada goobjoogga ah maalinta doorashada iyo aqlabiyada codbixinta 8 hubinta tirada xubnaha codeynaya iyo sida ay codadka u kala dhiibteen 9 xallinta wixii muran ah oo ka dhaca codbixinta 10 tirinta iyo ansixinta codadka la dhiibay iyo ku dhawaaqidda natiijada doorashada 11 dhaarinta murashaxiinta ku guuleystay
jagooyinka ay u tartameen. labiyo toban kulamada guddiga waxay qabsoomayaan markii ay goobjoog yihiin ugu yaraan 3 meelood oo guddiga ka mid ah. 13 dhammaan kulamada guddiga waxaa shir gudoominaya gudoomiyaha guddiga hadduu maqan yahayna ku-xigeenka. qaybta saddexaad hab maamuuska doorashada. kalfadhiga shirka waxaa si rasmi ah u furaya gudoomiyaha baarlamaanka galmudug kadib markii uu hubiyo tirada uu ku furmayo kooramka. 2 xildhibaanada soo jeedinaya murashaxa kama qayb noqon karaan soo jeedinta musharax kale. guddiga doorashooyinka waxa ay soo bandhigayaan qaabka ay u dhacayaan doorashooyinka iyaga oo faahfaahinaya dhammaan tallaabooyinka la xiriira geedi socodka doorashooyinka guddoonka baarlamaanka. 4 goobta doorashada waxaa ka reeban taleefanada, kaamirooyinka, qalabka elektarooniga si loo ilaaliyo habsami u socodka doorashada. codaynta waxaa markasta ugu horeynaya gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. 6 waxaa ku xigaya xubnaha guddiga doorashooyinka. 7 xaadirinta iyo yeelista xildhibaanada codaynaya waxaa akhrinaya xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka islamarkaasna xubno ka mid ah guddiga ayaa ku dhawaaqaya magaca xildhibaanka codeeya. 8 murashax walba waxa uu yeelanayaa wakiil u hubiya codaynta. 9 codadka xumaada waxaa isla xaqiijinaya xubnaha guddiga doorashooyinka. 10 tirinta codadka waxaa si rasmi ah u diiwaangelinaya 3 xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka iyagoo buuxinaya foomka tirinta codadka waxaana goobjoogayaal ka noqonaya wakiilada murashaxiinta. 11 isugeynta codadka murashax walba uu helay waxaa sameynaya guddiga doorashooyinka. 12 natiijada doorashada waxaa ku dhawaaqaya gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. 13 haddii tirada murashaxiintu u kala tartamaya jagooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka ay badan yihiin, dhageysiga khudbooyinka iyo qabashada doorashooyinka waxaa laga dhigayaa maalmo kala duwan. ilaalinta anshaxa. qof walba oo saameyn toos ah ama mid dadban ku leh hannaanka doorashooyinka ha ahaado xubin guddiga, murashaxa, xildhibaanada, howlwadeennada, goobjooge ama taageere waxaa la farayaa in uu dhowro qodobada anshaxa ee soo socda. 1 in la ilaaliyo habsami u socodka howlaha doorashooyinka. 2 in laga dhowrsado akhlaaqiyaadka aan ku habboonayn ama carqaladeynaya goobaha howlaha doorashooyinka ka socdaan. 3 waxaa reeban bixinta, qaadashada ama dhiirigelinta laaluush lagu iibsanayo codad doorasho. 4 waxaa reeban dagaal, aflagaado, qaylo iyo wax kasta oo wax u dhimi kara dadka iyo hawsha socota. 5 in xil la iska saaro in hawsha maamul dhisidda u socoto si hufan. in guddiga doorashooyinka kalsooni lagu siiyo howlaha ay hayaan, faragelintana laga ilaaliyo. 7 kaliya waxaa si rasmi ah magaca guddiga ku hadli kara gudoomiyaha guddiga iyo qofka uu idmado si loo ilaaliyo nidaamka iyo kala dambeynta xubnaha guddiga doorashada. wabillahi tawfiiq. واسعة والإقرار هذا. shuruudaha musharaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. waxaa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug isu soo sharixi kara muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha soo socda. 1 muwaadin Soomaali ah kana soo jeeda gobolada galgaduud iyo mudug dowlad goboleedka galmudug ahna muslim guta waajibaadka diiniga ah. 2 caafimaadkiisa maskaxeed uu taam yahay. 3 da'diisu aanay ka yareen 40 sano kana badnayn 75 sano. 4 in uu leeyahay aqoon aan ka yareen heer jaamacadeed ama waayo aragnimo hogaamin iyo maamul khibradeed oo aan ka yareen 5 sano. 5
waa in aan lagu xukumin dembi ciqaabeed. 6 waa in aanu maxkamad ku xukumin xadgudubka dhan ah xuquuqul insaanka. 7 in uu guddiga doorashooyinka u soo gudbiyo taariikh nololeedkiisa keeda CV-ga iyo 2 sawir nooca baasaboorka ah. xafiiska qabashada dukumentiyada murashaxiinta oo ku dhex yaalla xarunta Shirkole wuxuu furan yahay 8 subaxnimo ilaa 4 galabnimo maalmaha ku qoran jadwalka doorashada. 8 in murashaxa u tartamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug uu bixiyo lacag dhan 20,000 madaxweyne ku-xigeenkana $10,000. guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Salaamo Baan account number 33303959 oo aan loo celin doonin. qodobka 9aad oo ugu dambeeya in uu barnaamijkiisa ama keeda doorashada u soo bandhigo golaha sharci dejinta dowlad goboleedka Galmudug ka hor qabashada doorashooyin. aad iyo aad u mahadsantihiin.